السلام عليكم. maanta waxaan barnaamijkeenan kaga hadli doonaa samirka. Samirku waa nimco Allah subhanahu wa ta'ala ku galado adoomihiisa, waana sifo ay waajib tahay inaanay ka maqnaanin qof walba oo raba inuu gaadho guul. Samirku waxa uu ku bilaabmaa ilmo, waxaana uu ku dhamaadaa dhool cadeyn. Samir la'aantuna waa daciifnimo halka ugu dambaysa. Samirkuna waa ubax kaasi oo aan ka bixin beer walba. marka ay qofka muslimka ah dhibaato qabsato waa kii samirka kaashada dhanka Allahna u carara sida ku xusan aayada ku jirta suuratul baqara واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. waxaa kale quraanka ku xusan qisada ugu mudan ee samirka khusaysa waana qisada nabiyullaahi ayyub alayhi afdal salatu wa tamu tasliim. nabiyullaahi ayyub abtirsiintiisu waa أيوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم السلام. waxaana uu quraanka ku xusan yahay afar goor, waxaana lagu imtixaan nooc walba uu yahay. nabiyullaahi ayyub waxa uu xanuunsanayay muddo 18 sano ah, waana uu samray xanuunka, waxaana uu ilaahay ku bariyay ducada ah rabbi inni massani ad-durru wa anta arhamur rahimin. Allah subhanahu wa ta'ala waa uu ka aqbalay ducada, waayo Allah waa rahiim. xanuunkiina waa uu ka dulqaaday, ehelkiisii lamidana waa la siiyay. فاستجبنا له ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. samir la'aantu waa daciifnimo halkii ugu dambaysay. isku day inaad samirto, waayo dariiqa guushu waa uu ka kan yahay. wassalaamu calaykum.